waxaan oran karnaa qishka marka hore waxa sababay inta badan qishkan ka hadalna waxa waa qishka foonforada ama ardayda jiisiyada galaysa imtixaanka naqliga sida eerarka ama dugsiyada dhexe eerkooda iyo foonforada oo dugsi sare waxa saameeyay oran karnaa marka hore ardayda oo marka hore ay marayaan galaasyada ka hooseeya galaasyada aan tilmaanay oo aan marka hore imtixaankooda aan la ridin ardaygu marka uu tusaalaan marayo 7 ama uu marayo 6 ama uu marayo 1 ama 2 ama 3 lama inta badan iskuuladu ma ridaan ardayda deentaas waxay keentaa ardaygii hooseeyay isagoo waligii hooseeya aqoontiisa liidato inuu marba geeri soo baaso marba markuu geeri soo baasam aakhirka uu dambeeyay wuxuu soo gaariyay 8kii ama form 4 markuu soo gaaray kadib isagoo aan waxba hayn oo aan aqoon hore aan lahayn aqoon hore aan ku kaysanayn isla markaa aan u haysan baa la dhaco ayuu imanaya form 4 ama imanaya 8 kadib waxa uu isku dayayaa sidii uu ku baas lahaa ee uu kaga gudbi lahaa labada galaas taasina waxa noqonaysaa inuu isku dayo inuu qisho marka waxaan lahaa hadii marka hore ardayga galaasyadiisa hoose lagu reebi lahaa ardayga hooseeya oo imtixaanada kuwa ka hooseeya ay qiimo yeelan lahaayeen ardaygu waxa uu sameyn lahaa inuu marka hore dadaalaba inta kadib waxaan oran karnaa dhibaatadan qishku way saameysay dhamaan qaranka oo dhan qof iyo maxay qoys iyo cid kastaba kow ardayga sabab saameysay isweydiin ardayga waxa uu saameysay ardaygu markuu galaasyadiisa kala duwan qishka ku baaso waxa dhacaysa inuu jaamacadii ka baxo isagoo haba yaraatee aan u qalmin heerka jaamacadda uu ka baxay deedna hadhow marka uu tusaalaan imtixaan u galo shaqo uu ku baasi waayo ama aad u hooseeyo talabaad waalidkii uu soo kala saameynaya waalidkii wuxuu saameynaya waalidku ardayga ku tabacay ardayga wuxuu doonaya future-ka inuu ardayguna isaafaco isagana anfaco laakiin waalidku markuu tusaalaan ardaygiisa qishku soo baasay haba yaraatee dee waxa loo xalaatay oo tadhow tari doona ma jiro macallimiinta saameeyay macallimiinta waxa uu saameeyay haddaan saayir soo qaato beriyo hore waxa arki jirnay geli kadnaba ardayda oo bareeftada aad iyo aad u camalaya aad iyo aad u jooga aad iyo aad macallimiinta wax uga dhiganaya hatta macallinka waxa ahayd maxay de financial kale oo ka soo gala xaga maxay bareefadada imika laakiin sadarteen waxa laga yaabaa in haddii hatta bareefad heer caalami la furo in marka hore la yar xiiseeyo after 1 month aanu jirin ba ama macallinkii aan waxba ka dhiganba soo kale waxa laga yaabaa macallinka markuu iskuul ka dhigayo maada fiican isagoo dhigayo aqoonteedii leh in bariga hore ardaygu aad iyo aad u xiiseynaya ama u jeclaysiin wuxuu dhiga macallinka imika laakiin noqotay hadhow daada ka shaqeynaa iska wad oo aan la dhageysanba maamulayaasha qaabka oo saameysay maamulku maadaama ardayga ka baqanayn inuu dhaco ama uu hooseeyo inuu xataa ardaygii maamulaa aad iyo aad u adkaatay guud ahaan wuxuu saameeyay qaranka iyo iskuulka wuxuu saameeyay iskuulka waxa ka saayado ardaygu maalin doona imanay maalin doona aan imanay iyadoo aanu u dhaganugleyn macallinkiisii ardaygu isagoo u dhaganugleyn maamulkii isagoo u dhaganugleyn waalidkiisii qarankii buu saameeyay qofku markuu aqoon yeesho waa halka koowaad ee horumarku ka imanayo waa halka koowaad ee laga garan karayo waxyaabaha dhibaatada qaranka ku ah marka la keenay soo saarno arday bila aqoona guud ahaan qaranku uu feel garoobay way ka dhibaato badan tahay aafada qabyaalada way qabyaalada aqoon laanta keenaysa way ka dhibaato badan tahay qishku aafada soo kala tahriibka way tahriibka laftiisa waxa keenaya aqoon la loo xalin karaa aafada qishka kow doorka u weyn waxa leh wasaaradda waxbarashada runtii aad iyo aad bay iskaga xil saartaa inay yarayso aafada qishka laakiin waxaad moodaa inaanay dadkii kale iyaguna stakeholderska ka ahaa waxbarashadu inaanay ka caawin maxay wasaaradda waxbarashada in la yareeyo qishka wasaaradda waxbarashada waxaan kula talin lahaa marka koowaad gobol kasta macallimiintiisa waa in lala shiraa marka lala shiro waa in la weydiiyaa sidee baa loo yareyn karayaa aafada qishka ee ardayda foonfoorada iyo ardayda eedadka kadib marka macallimiinta lala shiro iyaga ayaa keenaya solutionka ama qaabka loo xalinayo qishka isla markaa waxaan ognahay marka aynu gobol kasta eegno ardaydu macallimiinta inuu baa aaminsantay inuu baa inta badan qishka ka caawisa ama maadooyinka inta ma loo daba fadhiistaa
macallimiinta inta badan qishka aan isteynay way ka qayb qaadanayaan ama waa macallimiinta ugu muhiimsan ardayda aaminsan tahay iyo qudhooda in laga qayb geliyo ilaalinta imtixaanaadka data professor data assistants iyo data salaan kuwa macallimiin galaasida qudhooda ilaalinaya waayo Soomaalida waxa tiraahdaa tuuga hadii ay doonayso inuu isagu aan waxba hayn isaga ayaa laabta loo dhibtaa